horta marka hore silsala meesalan kadib shacabkan ay ciidamada inta kooyeen mahamban obsidii walwal shabaab ku qabsadeen mahamban laakiin mayse istiraatiiji ahaan ee hel dagaal ee aan ka banay gobolka magaalada madaxda maadaama magaaladii degmada Tiyaglo iyo magaalada Xudur magaalada madaxda Xudur 90 kilomitir indhahayta oo gurmudadiina yeeriin saas daraadii ciidamadan oo degmada Tiyaglo iyo ciidamada xarunta gobolka Roog in hal mar is aragaan awoodiyo qiimeeyaan isla markaasna howlgal dhaqso in bilaawn yafadaan dadweynahana may lahan waday maadaama ciidamadii in maamulkii baxeen magaalada dadweynaha wal gumaadee gumaad ku obsashiga an gumaadan shacabka oo aan xelanay dawladda oo saaxib lahaay oo garabka dawladda haay an gumaadan cudowka shabaab haddaba markuu xukbanay dad badan ay gumaadeen magaalada walku wada bax maana tuulooyinkii la wada baxay kuwa kale kuwa hadda inta ka arago haytan maana ujeedadana ma shabaab ku obsateen ma shabaab wala meelaha roog walku ku adagnahay runtii laakiin gurmado badan iyo jidgooy badan ayaa daraagnay saas daraadii yaa way baahnay in la madeeyo ciidamada gobolka si loo maday marka hore baseedowje ma aragaana dhaliilan aragaana sababtoo ah oo awoodan an ka talan oo qiyaasna tayadana iyo tiradana an qiyaasna yaa degmada Tiyaglo ha galne saaseetu wal badan yaa ku qabanay oo ashabaabna aragdi awood una lana idadnimadaana iyo wadannimadaana ina sadarangan aragdi runtii markan hooyo ku hadda inta kooyni an mayka alohaye guul yanin ata sababto oo ah as araga kulanka bas inta la madeeyaw ciidamada awoodiyo la madeeyaw awooda gobolka Boqol oo ciidamada rooga tira itayahan markuu una ka talana una aragne runhantii ma awood shabaab waabay korta ma laakiin unu kala daadsanayn silleen madayaan kooyna hadii ilaahay raala ka dhig waan madayaan gudoomiye hadii dina ciidamada hadii ku hadalna in oo saragdaano awoodin madaytano howlgalada ban sameeytan ujeedkin ay dadka shacabka ee oo deegaanadii too guriyaajo wax ku barakaayna ma ka qanayaas in oo deegaanadii too diban kana gadaayaan dadweynaha la socdaan hubka shalmay garat Tiyaglo la sheegay hub awl yaali mahayna obsana mahan ku bana ashabaab ogda ciidamadii awal hubkun hayna bas ingalaay markuu hubkun la sheegay kala madaysan yaan baahna oo kaliya dadweynahana ogin maamulkana ka ganacsiin ciidamada saasan ka ganacsiin gobol iyo kooyan hadana ma ku bana gobolka saas daraadii ujeedada oo dhan way waaha an tala dhaqso madaysan oo gobolka dhan ku batay an ka howlgalno fadaan waan guul degdeg sa emergency an ka dir saasa ujeedadana su'aalanka dambeeyta haddii oo qorshaha inta aad in sheegay isugay shacabkan waa shacab oo tiradiis badan oo suuna ta aragahayna marka degmada Xudur yaha ka barakaan marka waranba maamulka hadiisan in oo magaalada la xukubaas la ogaayteen shacabkan awoodana in iyo baahi oo dadkan oo barakaay oo tiradii inta deerasa intii oo daboolan hadii kale may farmeeyay daraas dawladda federaalka koonfur galbeed ilaa iyo caalamka runtii magaalada madaxda gobolka Xudur oo naftiya go'doonka jirtay runtii maadaama magaalo go'doonsan shacabshe makaafi korta iyo gurma iyo waxtugan baaxadan leh maqancii korta laakiin walaa awoodiyo intaan leeyahay mayno koorkoyna 20 kilomitir meel anoo koorkoyn dadweynaha Xudur madaxda degmada ciidamada qalabka sida degmada Xudur eeda mahad ballaaran yanka jeediyaan horta soo dhaweynta wanaagsan iyo qaabalaada iyo farxadda ku muuqata dadka heer Xudur wal oo ilaawana ma qaabka ningaleen qaabka hanin qaabaleen runtii eedanin aniyeen وانا أركت أنبهنا نديه جلياسو والبدن نتصياسه يعني جين حقيقة ساس دراد دي ددوينهن
ما إنك باغي هي أده عالمية كو UN كو international NGO جدا ويكو لوكو الكبة إن قحوتيان ترى بدن أتيلو حقوقه إن صدق الجرجار هان للديران ما دام كمد أيين بالشدة عالمك أو باهن أو دباتيسن هدي أيين هي أتسمى فل أو إن جرجاران بالشدة باهناي ما يقعد سداية دولة فدرالك دولة كفر قلبات الصومالية إيوه هي أداها عالم كبه إن جرجار دق أهل الديران دت كان على محلبنا ودت كنت هذا السعد فيري ده مراسل اسمه لكن وليو قالنتك هاي أنجيك مال أرجعوا ساستراد ديه دت باهنا تأكلين باهنا دت تأكلين باهنا بركان وأتصدانه أنا هي أداها عالم عالم جاه إن جرجار دق أهل الديران ساسا يأكل أتصدان ولا